بسم الله الرحمن الرحيم. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sida aragga loo qaado, how to take vision. marka aad rabto qof inaad kala ogaato inay mataqaanaa waxa uu ka cabanayo cudurku ka cabanayo uu aragtidiisa wax u dhimay iyo in kale, waxa ugu horeeya la suubi waa in aragga laga qaado. marka qofka uun iskama dhigi karta aragaaga ma liita, aragaaga siduu yahay waxaa lagu ogaan karaa through a system ama jid la maro oo aan maanta rabno inaan meeshan ku barano. marka maanta waxaan idin bari doonaa ama cashirkan ku qaadan doonaa sida aragga loo qaado, meelaha lagu qaado, sida loo qoro, iyo qofka aad dhihi kartaan qofkan waa normal oo waa fiican yahay, iyo qofka aad dhihi kartaan qofkan waa abnormal ama araggiisu waa yaryahay. iyadoo kooban cashirkan ku bari doonaa how to take vision, sidee aragtida loo qaadaa si ay ugu sahlanaato qof walba aan bahda mataqaan indhaha kaliya ahayn, bahda guud caafimaadka xitaa ah inay awood u yeelan karaan inay aragtida qaadi karaan. ugu horeyn aragtida oo la qaado waxaan u naqaanaa ama medical terminology caafimaadka ahaan waxaa la yidhahdaa visual acuity. waxaa loo soo gaabiyaa VA ayaa loo soo gaabiyaa, visual acuity ayuuna u taagan yahay. marka haddaba systemka la maro waxaa kow ka ah marka aragga la rabo in la qaado in aragga laga cabiro dherer ah ilaa 6 mitir, distance of 6 mitir. marka 6 mitir waa inaad either ku cabirtaa adigoo haysto shay lagu cabiri karo, ama waxaa lagu qiyaasaa oo la yiraahdaa ilaa iyo 6 tallaabo oo meel ku jirto, ama qol ama meel 6 tallaabo u jirto qofka ayaa la rabaa in araggiisa looga cabiro. haddii lacala ay dhacdo meel 6 mitir ka yar inaad haysato oo aad rabto qofka inaad aragga uga qaado, sida meel 3 mitir oo kale haddaa haysato, waa inaad isticmaashaa miyaarad. sababtoo ah miyaaradda waxay ku daraysaa reflection 3 mitir ayay waxay ku daraysaa 3 mitir kale. marka qofka miyaaradda la hor fariisinaa, kadibna chartiga waxaa laga dhex tusaa miyaaradda dhexdiisa, saasay marka waxay ku noqonaysaa 6 mitir. marka sida standardka ee caadiga ah waa in qofka 6 mitir araggiisa laga cabiraa. taas waa kow. 2, meesha la rabo in lagu cabiro waa inay noqotaa meel mugdi xigeen, semi dark. waxaa la diidaa iftiinka badan ee qoraxda iyo waxay saameynaysaa ama indhaha qofka ama meesha arag chartiga ama jaantuuska la isticmaalayo aragga looga qaadayo ay saameynaysaa. marka waxaa la rabaa inay noqoto meel semi dark ah mataqaan in aragga looga qaado. mar walba aragtida la qaadayo labada il lama wada qaado, waxaa loo isticmaalaa unilateral, oo micnaheedu tahay in mar walba qofka hal il laga xiro oo isha kale la jeegarayo. sababtoo tahay indhuhu isku wada cuduro mar walba ma aha, hal ilaa araggeeda aad u leedi kara, hal ilaa 100% noqon kara. haddii marka labada indhood furan aad ka wada qaado aragtidii, waxay dhalinaysaa inay intiis caawiyaan qofka xitaa uu u muuqdo qof araggiisu fiican yahay. marka maadaama indhuhu aysan wax badan meel isaga xiran yihiin oo toosan aysan jirin, cudurradu si gooni uga kala dhici karaan. taas darteed marka waxaa la rabaa mar walba si gooni in il walba si gooni aragga looga qaado. 4, badanaa waxaa fiican in marka hore la xiro isha bidix. sababta occlude left eye, sababta xitaa hadhow waxaa la diidaa inaad ku wareerto isha marka hore aad jeegarayso. marka mar walba waxaa la rabaa in isha bidix inta la qabto aragtida isha midig laga qaado. marka isha midig laga qaado kadib haddana isha bidix la qaado, si hadhow aadan ugu wareerin oo aadan u dhihin isheeg horumari isheena horumar. marka mar walba waxaa la rabaa in isha bidix la xiro, isha midig aragtida la qaado. visual acuity markii la qoraayo waxaa loo qoraa sidan VA ayaa la qoraa, calaamadana saas loo hordhigaa. calaamadda marka saas loo hordhigo, isha midig mar walba waxaa lagu qoraa kor right eye, isha bidixna waxaa lagu qoraa hoos. micnaheedu waxaa waaye wax walba oo kuu soo baxo aragtida qofka oo midigtiisa ishiis midig kaaga soo baxo koraad ku qoray, wax walba isha bidix kaaga soo baxana hoosaad ku qoraysaa. waxaadna qoray mar walba ereyga
VA waa sida habka loo qoro waa marka aragtidu mar walba waxaa lagu qaadaa charts kala duwan laakiin chartiga ugu caansan ee aragtidu qofka lagu qaado waxaa la Snellen chart. Snellen chart wuxuu u qoran yahay sidan wuxuu ka bilowdaa 6/60 6/36 6/24 ilaa 6/6 6ka mar walba wuxuu taagan yahay dhinacaan jiro 6 mitir oo ah 6 tilaabo ee loogu talagalay wax laga cabirayo marka waxa lagu leeyahay 6/60 ka bilaabo ilaa 6/2 alif inta u dhaxaysa haduu qofka arkaayo waxaan leenahay qofkan waa abnormal ama aragiis waa yari wixii 6/2 alif ka yar ilaa 6/6 waa 6/6 iyo 6/9 wixii waxaa loo qaadanaa inay yihiin normal laakiin 6/2 alif iyo wixii ka dambeeyo waxaa leeyahay qofkaas aragiis wuu liitaa marka waxaa loo qoraa hadii lacala uu isha midig arkaayo 6/60 waxaa loo qoraa VA qoray calaamad yasaan u dhigay isha midig kor waay waxaa qoray 6/60 haduu kan hoose 6/6 arkaan waxaa u qoray hoos 6/6 oo macnaha isha bidix u taagan saasa marka loo qoraa aragtidu hadii lacala marka uu xitaa qofka bukaanka arki waayo 6/60 oo kan ugu sareeyo haduu lacala arki waayo waxaa loo suubiyaa waxa la yiraahdo counting finger oo in faraha la tuso faraha ugu badan ee la tuso waa 1 iyo 3 iyo 5 si uusan ugu confuse garin ama uusan ugu wareerin marka waxaa la suubiyaa 1 mitir laga istaagaa hal talaabo inuu jirto faraha la tusiyaa haduu sheego 2 mitir hal taga haduu sheego 3 mitir hal taga haduu sheego 4 mitir hal taga inta uu sheegay in la mid ayaa waxaa loo soo gaabsadaa CF waxaa loo qoraa marka VA inta la qoro ka soo qaad isha midig inuu 3 mitir ka noqdo saas marka dhacdo midig waa kor CF qori waxaa raacinay 3 mitir waa isha midig moogta isha bidix wuxuu ka noqdaa 2 mitir waxaa qoray CF 2 mitir marka ka soo qaad inuu qofkii xitaa arki waaye farihii arki waaye haduu lacala qofka farihii arki waaye waxaa loo suubiyaa waxa la yiraahdo hand movement oo macnaheedu tahay isha horteeda in gacantaada aad ku dhaqdhaqaajiso ayadan waxaa loo soo gaabiyaa HM isha bidaxa ka qabata ka soo qaad isha midig farihii xitaa waa arki waaye waxaa isha horteeda gacantaada ku dhaqdhaqaajinaysaa kadib waxaad weydiinaysaa dhaqdhaqaaqaas inuu dareemayo in kale haduu ku dhaw waxaan dareemayaa in gacan horteeda lagu dhaqdhaqaajinayo ka soo qaad isha bidix inay tahay waxaa u qoraysaa hoos waa bidix HM hand movement u taagan haduu lacala xitaa hand movement arki waayo waxaa loo suubiyaa wax la yiraahdo light perception oo in isha toosh lagu ifiyo kadibna la weydiiyo iftiinka ma arkay haduu arkaayo ka soo qaad isha midig inay tahay waxaa loo qoraa LB oo macnaheedu tahay light perception haduu xitaa light perception ka arki waayo waxaa loo qoraa wax la yiraahdo no light perception NLB oo macnaheedu tahay qofkan xitaa ilays ma arkaayo markaas maxaa qoray VA aad qoray ka soo qaad isha bidix inuu yahay waxaa qoray no light perception inaad ka faa'iidaysteen rajayna aragtida sida loo qaado iyo sida loo qoro oo kooban wixii su'aalo extra mar walba commentiyada iyo emailka waa igu soo diri kartaan aad iyo aad